hay-ad laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay biidaamin u sameeyeen shacabka ku dhaqan tuulada Moyko oo ka mid ah tuulooyinka wasiimadaha magaalada Jowhar xarunta maamul goboleedka Hirshabelle. Shacabkan ayaa waxa ay baaq u dirsadeen hay-adda SBNDO iyo bulsho iyadoo codsigaasi loogu soo jawaabay. Bulsho iyo SBNDO waa hay-ad u istaagtay sida ay u caawin lahaayeen dadka dhibaataysan. Gudoomiyaha tuulada Moyko ayaa u mahadceliyay hay-adda bulsho iyo SBNDO gargaarka bini'aadanimo ay u sameeyeen. سلام بعد وحن ما تعلنينا هيئة بنتو وحن ملينا وحي مكاس أو نهاي عن أي وحنا على كلميسي دي أي صدقة سلوان سوغارين دي أمنا تولد ملكو دي أد مخلوق نقول لها تولد ملكو ليرا تولدان وحن هاي قدميه تولد ملكو وكما سنتهاي وقال في بقالات ما سنتهاي إنسان الله كخبته وعن سيجي على إن واحد على وحي عن تاو سوقله تولد مويكو قاعد كسيس سلاسة جعلناي هذا واحد اللي جوا قدوميها أسرنا وما سنياي أنت اللي جرتوا قدقيسة وما سنيهن به وأنا سوقارين هذا وعبوه هناي سنذام أنكو عبوه هناي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyihii hore degmada Jowhar Maxamed Amiin Cusmaan Xaaji Abdul Caaqil dhamaan hal jiray gudiga tuulada Moyko halkan ka salaamay gudiga abaaraha ee Soomaali Bantu oo gudoomiye oo yahay saaxiibkii macaani dhamaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam xaqiiqdii gudiga maanta waxay joogaan tuulada Moyko waxa laba booyad soo sadaqaysatay ama soo sadaqaystay urur leeyahay bulsho oo kamid ah Soomaali Bantu waxaan nimid tuulada Moyko oo soo bilownay maanta aad arkaysiin in yaani ii sheeg dhibaatooyinkii ka jiray maalmahan baan ka wadnay tuulooyinka ku yaani jiinka ka tirsan in mutaxana tuulada Moyko aan maanta soo gaarno ururka bulsho ee ka tirsan Soomaali Bantu waxaan leenahay mahad ayaan idinkaga celinaynaa biyihii aad soo sadaqaysateen labada booyad ahaa ee loogu talagalay tuuladan jiinka ee dhibaatada ka jirto in la gaarsiiyo waxa ila jooga gudoomiyaha tuulada iyo qaar ka mid ah gudiga abaaraha ee Soomaali Bantu ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagana kalmadooda ku aadan ay kasoo jeedi doonaan waad arkaysaan dhibaatada ka jirto iyo biyaha sida loo arooranayo wabiga weli sidii uu gursan yahay waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan inaad kasoo kaalmaysaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا كان كسلام يا دمان هيئة Soomaali Bantu deeqdan biyaha ah oo soo bixisay wadkuma santiin sida wanaagsan ayaa tulaalihina ugu soo gurmateen sida aad ula socotaan wali way jiraan dhibaatooyinka biyaha iyo waxyaalo kale oo ka sii daran way sii jiraan laakiin dhibaatada hadda ugu weyn ee haysata kunjiinka waa biyo la'aanta anigoo ka tirsan gudiga abaaraha Soomaali Bantu ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan idin xaqiijinaynaa ina macnaa sidii macnaa idinku soo dhiibataan anagana wixii sidii ugu fulino taas waa naga go'an tahay waxaan ku shaqeynaa si volunteer ah anagoo kulaanayna oo macnaa ordayna macnaa walaalaheena dhibaataysan idinkana aad noo tihiin garab marka anaga waxaan nahay garabkiina marka laakiin waxaad ogaataan inay wali ay jirto dhibaatadii marka soo dadaala war wixii sheegay lahaa gudoomiyaha ayaa hor u sheegay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معان أحمد حاجي جوهر.